كربي ألف لوستي ألف لقودي ألف لكربي ألف لقوري ألف لوستي بيا لقوري ألف لقودي بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو wanaagsan dhageystayaal meel walba oo inaga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada oo maalin walba hadahan oo kala aad uga barateen inaad kala socotaan warbaahinta Ergo ألف لكربي ألف لوستي ألف لقودي ألف لكربي ألف لقوري ألف لوستي بيا لقوري ألف لقودي barnaamijka waxbarashada oo maanta ku saabsan dood gaar ah ayaan waxaan u qabanay ardaydii ugu horeysay ee ka qalin jibisay jaamacadda Gado ee ku taal gudaha degmada Baardheer gaar ahaan labada kuliyadood ee kala ah maamulka iyo maareynta iyo waliba qaybta kale ee barashada aaladda cilmiga kombiyuutarada ayaa tiradoodu waxay dhameed ilaa 20 arday iyadoo ardaydaasina la guddoonsiiyay shahaadooyin heer jaamacadeed ah haddaba kulankii lagu guddoonsiinay shahaadooyinka ardaydaasi dhameysay waxbarashada jaamacadda Gado oo si heersare loo soo agaasimay tan iyo xilligii la furay jaamacadda oo muddo haatan laga joogay ilaa 4 sano ayaa ardaydii ka qalin jibisay waxay ahaayeen kuwa soo dhiganaya jaamacadda muddadaasi waxaana kulankii lagu guddoonsiinay shahaadooyinka goobjoog ka ah qaar ka mid ah maamulka islaamiga gobolka Gado odayaal aqoon-yahano waalidiinta ardayda haween culimo u diin xubno ka socda qurbo joogta iyo waliba waxgarad kale xubnaha ka qayb qaadanaya barnaamijkan dooda ku saabsan qalin jibinta jaamacadda Gado ayaa waxa ka mid ah maamulka iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Gado iyo waliba qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jibisay jaamacadda waxaana kala yihiin magacyadooda Bashir Umar Ciise oo ku xigeenka hormuudka jaamacadda Gado Dr. Ali Malaq oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaana hormuudka jaamacadda Gado Said Abshir Artan oo kamid ah ardayda jaamacadda ka qalin jibisay Aadan Faarax Cali oo isna kamid ah ardaydii ka qalin jibisay jaamacadda Gado iyo Cabdisalaan Cabdullaahi Cali oo kamid ah ardaydii ka qalin jibisay jaamacadda Gado haddaba su'aasha ugu horeysay aan ku daahfurayna barnaamijka dooda ayaa waxaan weydiiyay Bashir Umar Ciise oo ku xigeenka hormuudka jaamacadda Gado inuu sharaxaad kooban uu ka bixiyo marxaladii kala gedisnaa ay soo martay hirgelinta jaamacadda Gado iyo heerka maanta ay marayso bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin aad ayaa u mahadsantahay ana magacayga Bashir Umar Ciise saad sheegtay ana xigeenka hormuudka jaamacadda Gado waxaan rabaa inaan warbixin yar kooban kaas iyo hirgelinta jaamacadda Gado iyo marxaladii ay soo martay iyo baahida keentay jaamacadda inay hirgasho waxa ay soo bilaabatay fikirkeedu 2003 ayaa dad badan oo gobolka Gado iyo meelo kale ka kala yimid oo qornbaha qaarna jooga qaarna wadan gudihiisa joogaan waxay isla soo qaadeen in bal gobolka loo sameeyo waxbarasho ka sareysa secondary-ga ama dugsiga sare kadib markii rag booqasho ku tagay ama rag gudaha jooga isla ogaadeen in baahida secondary-ga waxbarasho secondary ka sareysa ay halkan ka taagan tahay lana arkay arday badan oo ka qalin jabinaysa secondary-ga sida magaalooyinka waaweyn ay gobolka Balaxawa iyo Garbahaar iyo Baardheer ay kamid yihiin marka fikir waxa dhashay ah jaamacad ama macahad at least wax ka sareeya secondary-ga in laga furo 2003 ay soo bilaabatay wax badan arrintaas rag u juhdi bixiyeen waxana fikirkayeen markii gobolka Soomaalidu ay dawladda dhexe ka dhacday goboladii oo dhan waxay dadkii waxay ku go'aan gaareen baahiyahooda ay dabashaan marka arrintaas ay asal u ahayd gobolka dadkii u dhashay waxay isku taxallujeen inay waxbarasho secondary ka sareysa sameeyaan aduu waxay soo socotay 2005 ayaa dhul loo gaday ilaa jaamacaddu oo raan laga dhiso qarash la aruuriyay oo Soomaali weyn laga soo aruuriyay 2008 jaamacadda galaasyada ugu horeeyay ayaa la furay bishii Abriil oo ay markaas ku furantay kulliyadda maamulka maareynta iyo kulliyad kale oo yar oo adiga qaybta luqadaha laga dhisay dadka iyo maartay diyaarin ah maadooyinka asaasiga ah waxbarashada jaamacadda markii 2009 ay jaamacaddu campus si dhisatay ay iyadu leedahay ku shaqeysa haddaba oo maartay magaalada ku yaala waxyaalo badan oo marka marxalado badan kala duwan oo hadba lagu soo koobi karin warbixintan ay soo martay haddana jaamacaddu heer fiican waxay maraysaa ilaa muddo 4 sano ay jirto وقت دكتور بشير سؤال كلا ديان كويديو إن مانتا وحد كقبتين حرنتينا إن أرديدي وورسي كقلن جس جامعة دقيدو واي مساتر ذا أرديداسي
kulliyadahaas ayay ka qalin jibiyeen aad iyo aad ayaa u mahadsantahay maanta waa is arkaysay waxaan qabnaa xafladii qalin jabintii ardayda ugu horeysay ama dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabista kulliyadda maamulka iyo maareynta sidoo kale waxa ayaguna xafladda ka qayb ahaa arday ka qalin jabisay oo ahaa dufcadii afraad dibloma yar oo computer training yiraahdo maadooyinka macnaha applicationada ama softwareka asaasiga oo ku shaqeynta computerka aan ku bari jirnay ardayda qaarkood marka cadad ahaan ardayda qalin jabisay marka laba qol isku daro waxay 20 arday maamulka maareynta 14 arday ayaa ka qalin jabisay markii u horeysay waxa ku bilaabeen adigu ala 36 arday ay ku bilaabeen 36 arday waxa qalin jabisay 14 arday baa qalin jabinta soo gaartay waa fikir aad u fiican marka la fiiriyo number fiican weeyaan ardayda kalena waxay ahaayeen 6 arday ayaan ka qalin jabisay computerka computer training ah koorsada ah marka maadooyinkaas ayay ahaayeen maanta xafladii aan u qabanay iyo kulliyadahaas kala qalin jabiyeen artan waxaan ku soo dhaweynayaa saacid abshir artan waxaad ka mid tahay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Gedo gaar ahaan kulliyadda maamulka iyo maareynta imisaafsan ayay kugu qaadatay waxbarashada waa sidee xad dareenkaagu aad iyo aad ay u mahadsan tahay magacaygu waa saacid abshir artan waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda Gedo University waxaan dhiganayay muddo 2 sano ah waxa ii suurta gashay inaan maalinkii shalay ahayd oo bisha ahayd 17 bishii 2 2012 aan helo shahaadadii diblomada aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxa weeyaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay ardayda dhigata dugsiga sare muxuu ahaa oo joogta gobolka Gedo qaasatan degmada Baardheere in ay yimaadaan jaamacadda oo ay aqoontooda ay si kororsadaan mid kale aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan helo shahaadadan in kasto ay tahay dibloma haddana waxaan rabaa digriyada ka sareeyay inaan ka sii dhameysto jaamacadda hadii la yiraahdo oo Ilaahayna gaarsiiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Axmed Cumar وهاتنا وحسيني آذن فارح علي وحد كمتها آذن أرديد كقلن جس جامعة أضاء كل بلاوي مجا عجا كلية كقلن جسي وحنشعلنا هنا كويديو مددي هتكون جت لنا وحولها وحبرشة جامعة محد كحسي كرتا مادوين كي أتكبر نيسين مسجل عندي باتوين أما عقبضه أتكلم أنت وحبرشة جامعة أنت هتكون جتي. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقاعد الغر المحجرين وشفيع المدين رسول رب العالمين. أنيقو آدم فارح علي كان من أرددي كقلن جلسي شهادة كقالة الدبلومة تاريخ ذا ولالك يساعد هداو تكرك الصور شيغي waxaan qaatay shahaadada diblomada waxaan aad u xasuustaa maadooyinka aan ka qaadanay inkastoo halka lagu soo koobi karin oo 22 chapter ay ka koobnaayeen waxaa kamid ahaa financial accounting, managerial accounting, cost accounting, marketing, statistics, human resource management. maadooyinkaas kamid ahaa qaybaha diiniga ahna waxaa kamid ahaa minhajul muslim مصطلح الحديث ثقافة الإسلام waxay ahaayeen runtii maadooyin xurasho fara badan oo macalinku ku sameeyay asaga oo aad u qadarinayay meelaha muhiimka ah maadaama aan nahay qoradii ugu horeysay ee jaamacadda diblomada ka qaadanayso khulaaso uu ku sameeyay jaamacadda qaybteeda koobaad ilaa bachelor chapterradii ugu muhiimsanaa kuwaas aan meesha ku soo dhameynay intaas iyo in ka sii badan ba waan soo qaadanay waxa xasuus mudan in ayada oo aan gobolka Gedo jaamacad lahayn markuu yimid Dr. Bashiir oo jaamacadaha dibadda ku soo dhameystay in uu juhdi fara badan iyo abaabul iyo dhiirigelin uu nagu siiyay in aan jaamacadan annaga oo ardadii magaalada aan jaamacadan aan siino ihtimaam in aan wax ka barano asagana uu ayada oo ay jirto qabanqaabo guud oo jaamacada simina uu sii bilaabo in la sii bilaabo galaasyada jaamacada maadooyinkan caafimaadka iyo maamulka iyo maareynta in uu sii bilaabo iyo luqadaha si ayada oo meel fiican ay joogto dhismihii loo gaaro waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadaalka uu bixiyay Dr. Bashiir Umar Ciise iyo nimanka diasporaha
بروفيسورada iyo aqoon-yahanada iyo dhalinyarada ee dibadda joogay aad u taakuleeyay hergeliyay isku dayay juhdi ku bixiyay annagana nagu dhiirigeliyay inaan waxbarasho tayo sare leh facultiyo wanaagsan oo kuwa galbeedka iyo hadii ilaahay idmahay Asia laga barto kasii quality sareeyo maadaama aan laba luqadood oo isfasiraya aan ku qaadanaynay afka hooyana wax lagu baranayay luqadda ingiriisiga iyo carabiga iyo diiniyadana lagu baranayay arrin aad iyo aad muhiim u ayay ahayd inta ayaan ka xasuusanayaa wixii aan ka tagayna hadee sheedaan xaqiisa ka ahaadeen waxaan xasuusanayaa ilaahay baa ku mahadsan midda kale caqabadaadka soo maray hadee waqti adag oo dawlad jirin oo isgaarsiintu ay xun tahay oo hadii ilaahay idmahay nabadgelyadu ay iska hoosayso oo maalinba ay wax dhacayeen abaara iyo duruufo adag iyo dhaqaale la'aan iska jireen yaan macallimiin haday tahay iyo saboortariska diaspora haday yihiin iyo annagoo ardada haba aan u soo dulqaadanay nabadgelyadu si fiican uma buuxin ilaa al'aana ma buuxdo abaara fara badan oo gobolka oo dhan oo Soomaaliya geeska Afrika ku dhuftay baa jiray dhaqaale la'aan badan baa lagu dhiganayay taas waxaan marka u dulqaadanay in aan hadii aan dib loo marin aan loo baxayn natiijo wanaagsan aan la gaarayn yoolka la higsanayo oo ah in ay jaamacaduna hirgasho annaguna aan mutacallimiin ka noqono salaamu calaykum wa rahmatullahi billahi tawfiiq waa su'aalka hadii aan ku weydiiyo qorshaha mid kugu jira inaad sii wadato waxbarashada jaamacadeed waa mahadsan tahay Axmed Cumar aad iyo aad baan u danaynaynaa ilaa heerka ugu sareeyo intii aan noolnahay ama aan heli karno macallimiin diyaar u ah inay waxna baraan annaga iyo caruurtanada iyo saaxiibadanaba in aan wadno annagana aan dhamaysano diploma inta noo dhiman bachelor inaan qaadano inaan haddana galno master aan ka qaadano PhD inaan ku diyaarino xitaa diyaar baan u nahay waxaan ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada ka baxday dugsiyada sare in ay isku dayaan in ay wax bartaan oo ay ka faa'iideystaan ayagoo gurigoodi joogo oo qurbo u marin oo lahjad iyo luqada aysan aqoon aan u marin markay ka soo baxaan dugsiyada sare ee gobolka iyo kuwa dalka dhamaan wixii arintaas ay kaga faa'iideysan lahaayeen oo dhan maadaama ay diyaar ku yihiin macallimiintuna ay ballan qaadeen hal qof intuu u diyaar yahay inuu wax bartay inay wax barahayaan maalgelinta loo sameeyay oo waxbarashadahana meesha hadda Soomaaliya markii jaamacadaheeda gobolada iyo caasimadda Muqdisho la firiyo meesha ugu tayasareysa ay tahay xagga qalabka waxbarashada technology-ga iyo macallimiinta iyo hadii la ku rooyay galaasyada intaba ay tahay in ay wax ka bartaan yaan aad ugu dhiirigelinay annaguna waxaan diyaar u nahay kana codsanaynaa macallimiinta iyo maamulka jaamacadda chancellorka iyo vice chancellorka iyo tutorska iyo lecturerka intaba waxaan ka codsanaynaa iyo staffkaba in aan dhamaysano nalana siiyo galaaskanaga si aan halkaas uga sii wadano waad aadan dib ayaan kugu soo laabanayaa haddana waxaan siinayaa barnaamijka dooda wadaaga su'aashaan jeclahay inaan weydiiyo waxay tahay Cabdisalaan hadda waxaad ka qalin jisay Cabdisalaan jaamacadda Gedo shahaado ayaan lagu doonsiiyay waa maxay waxiga ay ku qorshaysan ama aad ku taamaysid xilligan بسم الله الحمد لله هذا ما أنت إلهي وإسكاله أنت كبعدي أنت أنا هرت برنامج كانوا جود جرين وحن معناها أنا آدي آد أن وهم بلجين هيا وأن مرتاح عشان أسمع والسلام هيا معلم كي وإحنا صوبري ونصور برا ذيك وعيد واحد جرين ومرتاح وإحنا برا بشير عمر عيسى وحن كلون آد والسلام هيا بروفيسور علي ملاق أنت كبعدي ورجع معنا دي بداس أنت كبعدي ولا له ولي عمر أحمدو أنا كوا برشة ضد وين بعنا هذا ومعناها إيجا الله سنة هذا واحد بلا ما صوت ديارنا تقول ما كبعدين وحارنا إن بجلار ديارنا هذا إلهي لا الله سنة نبغى ما كبدن هذه أدب وحن ضنين إن مارتا إن وحبرشة دي هل كده أنك سي وضنا وأن مارتا إن شاء الله الرحمن أنا استرنا وحبرشة النادي ساسا جعلنا هاي بدك العقبات كي ويسكجرين معناها فارم انتي أكون الله يسكر كعسنا ومعناها أمر حرم سوق الشيء وحتى أمر ويسكجرتي دائما كانوا وحاول ويسكك عسنت هاي وإن شاء الله الرحمن إلهي وحكي رجينا إنه مارتا هاي شرط وضعي دبعت وضعي لأنه كافيه الحمد لله مركب ويسكفي عنا سلاسة هاي بيان كوصل الله وانتنا هاتنا وحسينا يا بشير أو ku-xigeenka hormuudka jaamacadda Gedo Bashiir su'aashan ku weydiinaya waxay tahay guud ahaan ardayda wax ka barta jaamacadda Gedo waa imisa tiradooda
qaab noocee ayaa se kusoo xulateen ardayda wax ka barta jaamacadda Gedo iyo kuwa hadda la doonayo ama kuwa hadda daneynaya inay wax ka bartaan jaamacadda bismillah aad baa mahadsan tahay su'aashaas muhiim weeyaan waxa horta rabaa inaan marka la dib ugu laabto aad baa mahadsan ardaydu macallimiin badan oo aniga aan ahayn baa horta meesha macallimiinka ah ay laftooda mahadnaq mudan yihiin rag badan oo maamul ayaguna oo waxa jira hadda qaarna baar dheer jaamacad joogan qaarna ay meel kala duwan joogan ayagana loo mahadnaqo loo bogaadiyo u baahan dhamaanteen macallimiinta waxa kamid ah ay kulliyadan ka ahaa laftooda macallimiin Daahir Cabdiraxmaan Awdiiriye waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Dr. Bashir Usman oo jaamacad wax ka baarayay waxa kamid ah sidoo kale aadan Ganay aadan Ali Faray iyo macallimiin kale oo ay markaas Dr. Ahmed Abdi Ahmed Garwax macallimiintaasna waxay mudan yihiin in la mahadnaqo aad bay u fiican yihiin oo waxa weeyaan juhdiga iyo dhirka dhabar adayga kulwada qayb ka soo galay midaasna ka gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo ardayda qaabkan ku xilano waa qaabka standardka ay jaamacadaha Soomaaliyeed ama jaamacadaha adduunka wax ku qaataan ardayga secondary inuu ka soo baxo ayaa shardi ah markaasna imtixaan entrance exam la yiraahdo imtixaanka galitaanka jaamacadda qofka lagu qiimeynayo quality-giisa laga qaado kabacdina processadii kale oo jaamacadda la marsiiyo sida applicationadii iyo hawlihii marka saasan ku standardkaasan ku qaadanaa duruufo badan oo iska jiraan waxa laga yaabaa in la kulano arday waxbarashada qabta age-kii secondary-ga ka weydaaday amaba ayagoo secondary-gi form 4 ama form 3 maraya uu ka kala go'ay kabacdina ka weynaaday da'dii form 4ka sidaa darteed baan waxaan sameynay standard kale oo wax ku qaadano oo ardaygaas oo kale waan fiirinaa marka waxaan soo marsiinaa muddo ama sanada ama 6 bilood ama in ka badan qof walba hadda meesha waxa uga dhameeyay aan ku qualify gareeyo oo uu noqdo arday jaamacadda dhigan karo maan si aan fursadda ardayga qofna loo lumin ay arinta u sameynaa ardayda guud ahaan jaamacadda numberka dhigata hadda waxbay soo marayeen gobolka oo caqabado badan ka jiraan si rag igu horeeyay sheegan oo gobolka mar barakac baa ka jiro abaar baa looga barakacay mar colaadaha ka jiro abaar looga barakacay xitaa haddaan marka qaarkood colaado iyo barakac jirin dib kale gobolka gadahaysta waxa weeyaan xuduud buu ku yaalaa xuduudkaas marka waxa laga yaabaa dad qaxootiyada u socda oo gobolka kale Soomaaliya ka yimid inay gobolka soo maraan dadka oo iska degan oo roob haysan oo galay haysan markii qof raran uu soo maro ba waxa laga yaabaa kacaan oo ay ayaguna geedin noqdaan marka barakac gobolka ma dhamaadaba marka ardayda numberkeeduna wuxuu ku xiran yahay habka deganaanshaha gobolka markay ugu yaray 7 arday baa dhiganayay markay ugu badnayn ilaa 100 xogaa baa dhiganayay hadda kaarinta arday dhigataa waa arday marka laga reebo arday qalin soo baxday arday ilaa adigu hadda 100 ku dhawaaya dhigata waa gartay Bashir su'aal kale hadii aan ku weydiiyo jaamacado kala gudsan ayaa dalka Soomaaliya ka furan xiriir noocee ayaan ka dhaxay jaamacadahaas su'aal aad u muhiim weeyaan really anaga jaamacadda Gedo ragga hormuudka ka ah boardkooda ilaa iyo maamulka executive-ka academic-ga ah iyo ragga board of trustee-ga ah waa rag wada qualification-kooda uu PhD iyo master ugu yaryahay iyo bachelor raggaas waa rag aadna joog ugu galay maamulkaas inay taban marka waxa jirtay xiriir badan la sameeyay jaamacadaha tusaalaha ugu muhiimsan hadda aan ku soo koobay wuxuu yahay wafdi ka kooban jaamacadda ilaa 4 xubnood oo rag ugu sareeya ah board of trustee rag madaxa board of trustee iyo ku-xigeenadooda ayaa waxay safar ku tageen gobolada Somaliland jaamacadaha Amuud iyo jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Burco bay la kulamo la soo yeesheen waxayna la soo galeen heshiis tacaawun oo memorandum of understanding bay kala saxiixdeen waa jaamacadaha ugu waaweyn gobolkaas sidoo kale jaamacadaha Puntland rag wafdi ah tagay jaamacadaha Muqdisho ku yaala xiriir baan la leenahay jaamacadda Simad oo ragga madaxda asxaab nahay ayagana isfahan ayana dhexmaray oo memorandum baan isla heshiis gaarnay jaamacadda Muqdisho sidoo kale jaamacadaha xamar waaweyn ah memorandum of understanding waan kala saxiixnay ayagana tacaawun xagga academic-ga iyo waxyaalaha mutual interest-ga waxyaalaha naga dhaxeeya oo labada danta noo ah oo ay ugu horeyso horumarinta bulshada Soomaaliyeed ee xagga waxbarashada oo hadafkeenu uu ka wada siman yahay inaan iska kaashano wixii tababar isdawaarsano wixii qalab iswaarsano wixii fursado waxbarasho ummadda Soomaaliyeed lagu barayo inaan nabad sidaa darteed ardayda jaamacadaha ugu weyn Soomaaliya xiriirkaas ayagana dhaxeeya waxaana mahadada iska leh ragga Chancellor Cali Malaaq Ahmed iyo Engineer Hassan Abdullahi Diiriye Professor Shaaciye Professor Dadisho rag badan aan xusi karin oo u taagan habeen maalinba sidii ay maartay horumarna jaamacadda raggaas ayaa socdaal ku bixiyay ayaga jeebkooda ay iska bixinayaan ay ugu tagayaan si ay maartay isfaham u soo yeeshaan jaamacadaha waana la soo dhaweeyay fiican baan oo la xiriir marka xoog leh oo ah inaan bulshada Soomaaliyeed tayada waxbarasho ka dhisno manhajteena markay isku dhawaadeen ayaa naga dhaxaya marka xiriirkaasna uu jira Ali Malaaq ugu horeyn bal waxaad ka mid tahay guddiga qabanqaabada jaamacadda Gedo muddo fara badan arintan dadaal dheer ayaad u gasheen
haatan ardayda ugu horeysay ayaa ka qalin jibisay jaamacadda Gedo marka jaamacadda door intee leeg ayay ku leedahay hirgelinta howlaha waxbarashada gobolka Gedo adinku see marka laga hadlo dhinaca jaamacadda waxqabadkeeda iyo ujeedooyinka loo asaasay waa maxay ujeedooyinka gaarka aad higsanaysaan bismillah alxamdulillah aad axmed طبعا ujeedooyinkii loo asaasay iyo halabuurkii ka dambeeyey mashruuca kan jaamacadda oo runtii muddo dheer soo socday marar badan baan ka hadalnay website-yada ayuu ku qoran yahay haddii aan si koonta u yiraahdo waxaa markii nidaamkii dhexe Soomaaliya uu meesha ka baxay waxaa Soomaalida u kala baxeen laba kooxood koox waxbarashadii iyo adeegii arrimaha bulshada sida caafimaadiyadii sidii kaalin dowlad waxbarashada heerar kala duwan oo dugsiyada hoose dhexe kuwa sare iyo ilaa jaamacadeed la gaaro iyo nidaamkooda dowladnimadooda dad soo ceshaday gobollo soo ceshaday oo markaa u dhaqaaqay inay arrimahooda maareeyaan oo aan dowlad dhexe waxba ka sugin oo dambe dadna waxay noqdeen kooxa ama gobollada qaarkoodna waxay noqdeen kuwa ku nagaada siday ahaayeen oo weli ka dhul sugaya in dowladda dhexe timaada dowladdaas oo markaas hanan doonta arrimahooda ama maarayn doonta arrimahooda hadday noqon lahay kuwa dhaqaale iyo kuwa waxbarasho kuwa adeega bulshada intaba dabcan waxaad og tahay in markii nidaamka dhexe u dambeeyay Soomaaliya uu jiray waxbarashada Soomaaliya dhammaanteed waxay waxbarashada oo dhan dowladda ayaa kafaalo qaaday ilaa iyo heer jaamacadeed waxay waxbarasho lacag la'aan ah inkastoo waxbarashada sare oo ama tacliinta sare la yiraahdo ay xamarkii loo doonan jiray now mar haddii nidaamka meesha ka baxay waxaa la isla gartay oo dad gobolka deegaankaas ahaa iyo dibadii gooba joogay ay yidhaahdeen marka kan waa xilligii waxaa la soo gaaray waxbarashadii sare gobolka la keeni lahaa lana abuuri lahaa waxbarashadaas jaamacadda waxay ama tacliinta sare waxay kaalin ka geysan doontaa haddii aan la yidhaahdo inay keliya ma aha in dadka wacyigelin dhinaca xalaaradda ah waxbarashadu waxay keentaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin in qofka waxbaranaya dhaqaalihiis iyo dakhligiisiina kor u kaca keliya ma aha taas waa mid ka mid ah laakiin waxaa kaloo uu abuuraa dadka waxbartay isfahan ayuu gaarsiiyaa inay isfahmaan oo haddii khilaaf soo dhex mara khilaafkooda ay iyagoo fadhiya ay ka wada hadlaan oo ay xaqaan oo aan qorin laisu qaadan oo aan la murdin oo madax laisi jibinin taas ayay dadka gaarsiinaysaa gobollada siday u kala waxbarasho fiican yihiin bayna u kala horumarayaan dhaqaalaha gobollada ku jira for example hadda gobolka jaamacadda ku taalla khayraadkiisa hadduu noqon lahaa midka dusha korkiisa saaran iyo midka dhulka hoostiisa ku jira intaba waxay u baahan tahay in lala soo baxa hadday noqon lahayd midka beeraha hadday noqon lahayd midka macaadiinta kala duwanna hadday noqon lahayd midka xoolaha hadduu noqon lahaa ganacsiga hadduu noqon lahay kaabayaasha dhaqaalaha sida garoonada ereeboorada maxaan ku rahdaa dekedaha ay ka mid yihiin xadiidyada laiskaga goynayo oo laba dal buu xad leeyahay ilaa intaas xad baa 5 meelood oo waxaa jira xadiidyada oo qolada kale laiskaga jiraya waxaasoo dhan tacliim bay u baahan tahay inay dhista soora saarta taas weeye muhiimadda marka ay leedahay waxbarashada tacliinta sare waxbarashada noocaas ahna keliya jaamacadaha laga helaa lagama hela dugsiyada hoose laguma barto kuwa dhexana laguma barto taas ayaa marka nagu dhalisay inaanu nidhaahno xilliga kan haddii dowlad dhexe meesha hore sana ay ka maqnayd dadka kan waa inay markaas ku tashadaan ayaga maxaan ku rahdaa mustaqbalkoodana iyagu ay hogaamiyaan mustaqbalkee la hogaaminayaa dad waxbartay ayaa lasoo saaraya oo badan kuwaas ayaa laga cabirayaa mustaqbal markaas inuu fiicnaan doona waxaa la eegayaa dhaqaalaha gobolka leeyahay dhaqaalaha dadka soo galay shaksiyaadka waxaa la eegayaa ganacsiga waxaa la eegayaa arrimaha kale oo ay kamid adeegyada bulshada oo dhan waxaas baa la fiirinaya si loo eego gobolkaas inuu hor u soconayo in kale dabcan waad og tahay 20 sana ka hoos meesha aan joogna ka hoos ayaan hadda joognaa laakiin waxaan rajaynaa haddii arrintaas ay sidaan u socon ay u horgesho in isbeddel dhexaad leh oo dhinaca dhaqaalaha iyo koritaanka dadka oo xagga ubasaylka iyo maxaan ku rahdaa inay muruunahooda khilaafkooda ay ku xaliyaan wada hadal ayaa isbeddel noocaas yaa insha allah in arka ayaan ku tala jirnaa waa tahay doctor cali malaaq waxaad ka mid tahay aasaasiyaashii jaamacadda
sidoo kale waxaad ka mid tahay dadka qurbo joogga ah ee dadaalka ballaaran u galay hirgelinta jaamacad laga dhiso gobolka Gedo marka waxaad tahay hormuudka guud ee jaamacadda Gedo su'aashaan jeclaan inaan ku weydiiyo waxay tahay qaab noocee ayaad u xulataan macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Gedo qorshaha shimid kugu jira in jaamacaddan aad ballaarisaan oo aad gaarsiisaan deegaanada kale ee gobolka Gedo baadiyaad aad u mahadsantahay dhammaantood su'aalaha wadiswaahaa qaabka macallimiinta aan u xulay haddaan ku hormaro waxaad og tahay macallimiin in macallimiin la qortaay waxay u baahan tahay mishaarooyinka macallimiinta in la xaqiijiyo maxaa ku rahdaa lana fikray ama la xaqiijiyo mishaarooyinka macallimiinta inay helaan waxaad og tahay dhaqaalaha gobolka oo liita awgeed ardayda iskama bixin karaan maxaa ku rahdaa siigii macallin mishaarka lagu siin lahaa caqabada ugu challenge nagu weyn oo nagu dhacay markay meesha dhignay waxaa weeye in mishaarooyinka macallimiinta aan helnaa mishaarka macallimiinta in la helaan macallimiin in lasoo qortaa marka iyada dabcan wasayada ayaan ku qornaa waa la xayeysiiyaa macallinka loo baahan yahay qualificationka laga rabo shahaadooyinka uu haysto maadada uu dhigayo waxaasoo dhan baa la dejiyaa criteria noocaasaa la qoraa websitekaa la geliyaa idaacadaha ka sheegnaa markaasaa ciddii macallimiinta gobolka jooga gobolada jooga ay soo codsadaan laakiin si loo helaa macallimiin tayo badan oo gobolada kale laga soo helo ama gobolka deriska laga keeno markaas waxay u baahan tahay dhaqaale xoog badan insha allahu qorshahayaga waxaa weeye iyo 2 sano soo socda oo yaraan bal in mishaarkii macallimiin tayo leh oo runtii ama gobolada kale oo Soomaaliya ama kuwa deriska ama dadka qofka joogta oo gobolka u dhashay laftooda ama gobolada deriska laga gobolka oo aan wax bartay bal qaabkii aan ku soo dhiirigelin inay meesha yimaadaan dabcan macallin kale marka banaanka laga keeno wuxuu kaa rabaa kow in maxaa ku rahdaa kow loo sameeyo in cuduradiisa meel la saaro taasiisa meel la saaro in caafimaadkiisa meel la saaro gobolka haddii degmadu ay farsamo isbitaallo leedahay oo nabadgelyo ka jirta waxay fududeynaysaa in dad la helaa oo lagu soo dhiirin karo meesha in la yimaado waxaan rajaynaynaa arrimahaas inay lagu taajir laftooda balqaabkii ugu habboonaa oo aan u geli lahayn laakiin waxaad ogaanaysaa kaalinta macallimiin tayo badan in la hela oo meelo kale ama dibadda laga keena ama gudaha laga keena waxay ku xiran tahay hadda dhaqaalaha aan leenahay insha allahu qorsheedu waa ku jirnaa arrinta kale oo aan ku tarjitahay in degmooyinka la gaarsiisaan degmooyinka already waa qoondaynay degmo kasta waxay ku habboon tahay eegnay degmo kasta maadada la geyn karaa ama qayb laga furi karaan eegnay kamarkan weli marka galo haddii aan la yihahdo oo aan salka u dhigno waxaan ku daba jirnaa degmooyinka inaan geyno maxaan ku dhahdaa degmo kasta waxay tii xoolaha u badan tahay oo kale qaybta xoolaha inaan geyno tii ay ku badan tahay ganacsiga qaybta ganacsiga inaan geyno qaab noocaas ayaan ka fikirahaynaa meelaha qaar insha allahu waxaan ka fikiraynaa meelaha farsamada inay iskuula farsamada laga dhigto inaan geyno haddii aan la yidhaahdo waan ku tala jirnaa waa noo qorshaysan tahay maadooyin kale insha allahu macallimiinta dhaqaale ay ku xiran tahay dhowr maado oo kale oo beeraha iyo caafimaadka beeraha iyo caafimaadka xoolaha ay ka mid ahiin iyo waxay dhahaan maadooyinka horumarinta bulshada iyo maadooyinka dadweynaha adult education ama in waxa la dhihi jiray dadkii waxbarashada jaaniska ayagoo yaryar xitaa inaan waxbarasho u furno gaar ah ayaan insha allahu ku tala jirnaa tayada waxbarashada saan kor uga qaadno luqadda ingiriiska iyo luqadda carabiga luqadda soomaaliga ardayda waxaan rabnaa inay 6 bilood dhigtaan maadooyinka insha allahu 6 bilood kadibna inta sano ay jaamacada in hadday 2 sano tahay 6 sano tahayba maadahaan inay u qaataan marka waxaan rajaynaa markuu ardayga jaamacada ka soo baxa inuu noqon doono arday adeegsan kara luqadda soomaaliga luqadda ingiriiska iyo luqadda carabiga si isku mid ah asagoo qoraal iyo akhris iyo maxaan ku rahdaa intaba isku si u isticmaali kara waa tahay ugu dambeyn yaa idinka saacida dhinaca hirgelinta jaamacadda haddii ay ahaan lahayd habsimo socodka howlaha shaqo ee ka soconaya jaamacadda oo ogsoonahay in ay u baahan tahay qarashaad aad u fara badan aad iyo aad baad u mahadsan tahay axmed waa arrin su-aal aad u weyn madaxana daarinaysa in laga jawaabo runtii dadka inay maqlaan ay u baahan tahay deegaanka ilaa hadda soo bilowgii soo isbixii xilligii jaamacadda aan bilownay fikirkeeda iyo dhismaheedii ilaa hadda dadka deegaanka dadka u dhashay gobolka oo dibadda iyo gudaha jooga dadka soomaaliyeed oo soomaalida dibadda joogta ah ayaa keliya ayaan ku tiirsanahay ma
maxaan ku rahdaa wadamadan islaamka iyo ka yimid maxaan ku rahdaa iyo kuwa reer galbeedka ahba oo aan leenahay waa soo kacnay intaasaan soo wadnay halkaasaan soo gaarnay waa isku tashanay naga caawiya qaybaha naga hartay oo maxaan ku rahdaa sida inaan qaybo kale oo ku siyaadina jaamacadda waxaan kaa iloobay kulliyadda waxbarashada oo kale waan ku siyaadin doonaa hadii aad yihahdo oo macalimiin baan soo saari doonaa xitaa qaarkood ay noqdaan macalimiin af soomaaliya ka dhigi doona dugsiyada sare iyo hoose dhexe ay ka mid yihiin baan noogu jidho oo si dhaqsan aan u hergelin doona hadii aad yihahdo marka cumar ninkan axmed cumarow dadka ayaa isku tashaday bini aadan marka isku tashadaanna waxaa ku muuqan karaya awoodda ay leeyihiin meesha ay gaari karaan waxaad aragtay oo goobjoogaad ka ahayd oo dhismaha intaa leed iyo maxaa ku rahda qalabka casriga oo la keenay meesha oo aragtay waxaa intaas maalgeliyey maskax iyo muuq ka bixiyey maxaa ku rahda dadka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo gobolka degan dadka ka shaqeeya howlwadeenada ah wax mashaarooyin ma qaataan intaa dadka in maqashaan rabaa wax mashaarooyinna iskaba daa for example aniga oo kale iyo dad ila mid ah shaqooyinka ayaan bay kasoo tageen oo hadda waad og tahay in maxaa ku rahdaa qurba joog ma hadda muddo ma aan ahayn waxaan ahaa dad gudaha ku sugan nairobi marka u sarreysa jooga inta kalena soomaaliya gudaheeda ayaan ku sugnaa waxaanan axmedow kuu sheegayaa sababta aan halkaas ay tiimka ka yimid dibadda oo jaamacadda ugana qaaday ama bilaabay inay dhaqaaqaan mashaarooyin ma qaataan iskada mashaara qaataan shaqooyinkoodii ay hayeen bay kasoo tageen ay taa uga gashay insha allahu markaan gaarsiino meel ay helis wadi karta muddo markaas ayaan kulooyinkeeda gudaha jooga ama maxaa ku rahda deegaanka ay la wareegi doonaan hawshaan waa hawl qofka leeyahay maaha hawl qofka shaqeyn kara maaha waa dadka ayaa iskale waa arrin public ah public waxay dadka in waalidiistaan weeye waxaan ku talinayaa marka waalidiinta iyo ganacsatada iyo dadka cuqaasha ah iyo maamulada gobolka waxaa jooga oo dhan in ay u arkaan inay tahay mustaqbalkii gobolkaa lagu horumarin lahaa dhalinyaradana u horseedi lahaa in ay maxaa ku rahdaa nolol fiican ay insha allahu ay ku noolaadaan inay tahay dhulkaa waxa kujeedin loo soo saaraa inay tahay arrintaas arrinta isugu tagaa oo aan loo kala harin inaan isbedel helna ayaan rabnaa isbedel xagga caqliga xagga aqoonta xagga dhaqaalaha isbedelada noocaas oo kale jaacada ay ka yimaadaan aad baa umahadsan tahay guud ahaan akhyaarta aanu jecelno waxaa intaasi aan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ah ee dooda ahaa islamarkaana ku saabsanaa ardaydii ugu horreysay ee ka qalin jibisay jaamacadda gedo barnaamijkan ayaa waxaa idinla socodsiinaya islamarkaana idiin soo saaray anigoo ah axmed cumar saalix inta aan ku kulmayna barnaamij midkan la mid ah akhyaarta aanu jecelno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ألف لوس دبي ألف لا قودي ألف لو كربي ألف لا قرب ألف لوس دبي يا لا قرب ألف لا قودي واو لا قرب ألف لا كربي ألف لوس دبي ألف لا قودي
ألف لو كربي ألف لغوري ألف لو أزدبي لغوري ألف لغودي واو لغوري إمد محمد كيني أوجد صلاته تكذو لبحي حج كله أودا شنطة كتير سلاوة جيرتان كيبه إمد محمد كيني أوجد صلاته تكذو لبحي حج كله أودا ألف لكربي ألف لأزدبي ألف لأقودي ألف لكربي ألف لأقوري ألف لأزدبي لأقوري ألف لأقودي واو لأقوري ألف لكربي ألف لأزدبي ألف لأقودي ألف لكربي ألف لأقوري ألف لأزدبي لأقوري ألف لأقودي واو لأقوري كسيو ما إنسكي كبحي يفتنيو أقوني وإياها الدنيا ذا وحلقوا أبارا عرقت دكو نحذا كوابيامي كسيو ما إنسكي كبحي يفتنيو أقوني ألف لكربي ألف لأزدبي ألف لأقودي ألف لكربي ألف لأقوري ألف لأزدبي لأقوري ألف لأقودي واو لأقوري ألف لكربي ألف لأزدبي ألف لأقودي ألف لكربي ألف لأقوري ألف لأزدبي لأقوري ألف لأقودي واو لأقوري